السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلهي مهدي دي أنا صلاة بني مر لواد مر سدحات مر فراد مر سناد وليبا أصحابي هدي أرجنا القصة تهاي حكا عد سنيا إن تسكرايب سارتت لايك شير فربضن بعد إن تقعد سنيا عاد بعد ما هتسنتين أنت channel كيكو حرنا أنت عصبنا ونسود وينيا ما أنت وحا ربع إنا كهلو أجندة حساسي أرن لو باهن يهي إن أن ودفهنو كل جين بارو أنا كهلمانت أصحابي بريهان دنبي وحاسوب بدنيا نمانك أم برقة صوماليات أو استعمال هوينك قبلهن الصوماليات باصوب بدنيا مالين بمالين تكدن بيس واحد المودا إني إسصوت ريان ajandaheenu maanta wuxuu ku saabsan yahay gabadha walaasheen ah ee Safiya Tusmo dibka soo gaaray baan rabaa inaan halkaan kala qaybsado anigoo caasha ah waxaan rabaa inaan idinkana aan ra'yigiina adigula wadaagtaan asxaabay sida aad la socotaanba intiina badan waxaa soo kordhaysa baryahan inay jirto gabadhaas walaasheen ah culays badan oo la soo gudboonaaday culayskaasoo ah in lagu haysto blackmail waxa la yiraahdo ambarkaato ba maxay ahayto hanjabaado fara badan in gabadhaas lagu haysto ba maxay ahayto soo tiraysa maalinta ka dambaysa marka maxay ahayto waxaan maanta rabaa inaan barnaamijkeena ku falanqeeyo wixii ra'yi idinka qabtaana ila soo wadaaga comment-ka ila soo wadaaga kulli anigana keygana waan idin soo gudbinayaa keynana ila soo wadaaga waxaa jirta gabdhaha Soomaaliyeed oo qurba joogta ah baryahan waxay noqdeen iridda aad loo ugaarsi wax la yiraahdo baa ku socda qurba joogta baryahan waxa ku socda ugaarsigaas oo ah hunguri xumo daciifnimo raganimo xumo intaasoo dhan isku darsatay bal gabar shaqaysata oo masaakiin ah oo ilmeed u xamaalata oo ayadu xamaalata oo maxay ahayto gabar aad ogtihiin oo fanaanad ah gabar majaajiliista ah gabar bulshada Soomaaliyeed magac ku leh oo ayadu ay samaystay magaceeda in maanta la magac dilo karaamada laga qaado sharafta laga qaado hanjabaad loogu sii daro soo dhibaato ma musaawarta idinku la baliin sheeg saawartaan marka asxaabay anigu kullay waxaan ku talin lahaa gabdhayow iska ilaaliya wadada halaqaya mareenka ah gabdhihiina qurba joogta ah mid ma aha laba ma aha saddex ma aha way soo tiriyaan maalinta ka dambaysa mid ooyeysa imaanaysa oo raggii Afrika joogay gabdhayow qurba joogta anigu kulley waxaan idin kula talinayaa meesha aad joogtaan nin Soomaaliyeed meel kasoo kula jooga nimankan aad Afrika u aadaysaan oo leedihiin maxay ahayd nin baa Afrika ka doonaya oo nin fiican ah yaa og wuxuu yahay wax ma ogid gurka lagu sheegay sidiisaba waa god mugdi oo gacantaada ku ridid bas ka cunye dahab ka soo qaadatay ma ogid marka anigu kulay waxaan ku talinayaa gabar walba meesha ay joogto ninkii Ilaahay calaf ugu daro ha ka raadsato haddii kale nimankan wada abeesooyinka oo masaska ah oo halka Afrika fadhiya ee gabar qurba joogta kaliya shilinkeeda saa afka u kala taagaya hala iska ilaaliyo gabadhaas walaasheenana u soo duceeya in Ilaahay maskaas ka hor wareejiyo saas ugu duubaya saas mas weeye mas ninku ma sheegi kar kaasoo kale saas isugu laaba gabadha dhameyd waa ta oynaysa xitaa Safiyada aan naqiinay ma ahan ayada dhan way isbedeshay murugada ka muuqato wajigeeda indhaheeda xitaa way gureen waa dareemi kartaan dinkuba waxaas waa mas Afrika fadhiya nimankaas masaska Afrika jooga oo jacaylka beenta ah idinla jilaya gabdhow ka feejignaada nimankaas masaska ah la iska ilaaliyo waad ragtaan waa u hanjabaya waxaan maqlay inuu yiri lacag $20,000 hadaadan siinin waxaan ku soo gelinayaa maxay ahayto baraha bulshada muxuu soo gelinayaa istaa nin inaagis qabay ahaayeen nin inaagis qab wax dhex mari kar qof walba uu og yahay wax cusub ma ahan marka wax waaye waxaan ku sheegay ma aqaano anigu dadka noocaas masaska ah waxaan ku tilmaamay ma aqaano gabdho Soomaaliyeed oo is ilaaliya
is ilaaliya arrintaas ban maanta barnaamijka ku soo qaadanaya oon ka aamusi waayey oo idan qisay oo maxay ahayto aan la xanuunsaday gabadhaas xanuunkeeda ilinteeda baa waxa u malaysaa daqiiqad horteeda imaanaysaa because anigu hooyaan ah kor biliseed Soomaaliya wax ku mahmaada kaba isma dheera dumarka caytamaya ee leh maxaa u geeyay wiil maxaa u geeyay maxay tahay calaf baa u geeyay calaf baa u galay waa nin Soomaaliyeed ayaduna waa gabar Soomaaliyeed waa is geeyaan maxaa u geeyay iyo hadal xumo ma loo baahna waxaa loo baahan yahay markaan oo kale xaaladda adag ay timaado support inaad siisaan gabadha walaashiin ah noocay doontaba ha ahaatee inaad support garaysiin ma ahana inaad iyadii u yeeshaan maxaa u geeyay maxaa ka dhax ku diganina bari kugu imaan kartaa adiga saayaa la dhihin gabadha support siiya support gabarnimo bay idinkaga baahan tahay gabdhow wiilashii waxgal ah oo caqli leh oo caqliga maxay ahayto saaxiibka ah way fahmayaan way la xanuunsanayaan hala support gareey gabadhaas ninkaas cadowga ah laga qabto Soomaaliyeey ha loo kaco gabadhaas walaasheen ah ha la garab istaago dhibka haysto waad u jeedaan waa is soo taraysaa daqiiqad bay is soo taraysaa marka walaasheen ha la garab galo maxay ahayto waa idinkaasa barnaamijkayga maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aad channel ku cusub tahay subscribe like share waa xagaaga haddii aad nala joogtana waxaan ku siinayaa big love